جري رومان أفرتن إيشان عشاء بودا ميست محكمة دي للربي إن لقول لابتو وهدنا أرنتي سيلو فريستو وحلو جسيدري صدن أفرش انتو نين اسكسو استاغو ويراهدو أنا الصحفي بأنا هايو يلي بايا وح أنا أنا مالها أدون كملو كجرا عروة كاسو شيء مالا أدون كجرت مالها ما نديه كرو مالو كديه كرا مجران Somali وكديه كرا الدولة مركا أقبل ميسو دجالك أنتي كل أو بلا شرعية صدني أفرعشوا أو بلا شرعية دجالك هصورن وحا هرمود كأ وحا ريحيو سدح ويل أو المأذيرة والدولة كجرو مثل سعنا وسدح ويل أو المأذيرة والدولة كجرو أود دولتنا استعمالها وحاوجه الرئي وكو وزير كحجانك ورفافين الصومالية العدالة أو بنانك جذها مالك استبكله دولة ده حس الشيخ أنا ملكي لك أما وحى أنا كوحدين إيربتو أياك السعونية يوم الثلاثاء يا أود دولتين إن شخص اللي ود الميو حس الشيخ وساس حق معه شالي مركز معارض كأهيد ورنتان شهادة maalin walba tobanaan ay ku dhintaan iyo 20 30 40 loo dhinto in looga propagandeeyo Muqdisho ma aqbalayso ninka rabaynu propaganda Muqdisho uga sameeyo ha u taga ayaga dhexdooda propagandaha ku sameeyo ma u tagi karo haday arkaan way gowracayaan hadana wuxuu rabaa dagaalkooda inuu Muqdisho uga propagandeeyo ayuu rabaa شعبك وإني أوجدان دجال بانكو جرنا كواس قيد كمدا بروباغانديستياشا أيها وحوض أوفا فياي وحي كمديه دجال ككوا أيها لا صفنا كمديه مركب مش حرية بمتعلق حرية صحافة الشيكات عسير ما نقابل إسلا دوابا باهنت يقول ماذا علاقة هذا نيسي صحفيين تلفت الكودة وحا أرلهيد هدي أن مر أنيق حفيز كتغو وحان بابئين دونا wax kasto oo xad gudub ku ah suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaan hirgelin doonaa environment ama deegaanka waxaan ka dhigi doonaa deegaan ay ku shaqeynayaan suxufiyiinta Soomaaliyeed bilaa cabsi iyo si xor ah laakiin waxa suxufiyiinta hadda dhibaya kuwii shalay booliiska ku amrayay in ayna garaacaan kuwii shalayna xiray kuwii shalay beegsanayay suxufiyiinta ayaa wali dawladda ku dhex jiro waxaana kow ka ah al-cadaalad يؤديك سنة يا مركز العدالة وحو أديك سنة يا لذويل وأسجع المأذير الله لا بد سياوة كو ومحط صلاة أو هايستا هي أدنى بسوق الصومالية وانيك سوقبتي عبد الله مومن أذير مياها يسوقبه أذير مياها أذينا ميلها يعني يسوقلنا يحر خفك الله بدياوة وأبشر بقاري ومدحتويد وفريق وسدح ويل oo ilma adeera ah beegsi toos aan ku haya Cabdalla Muumin iyaga walaaqaya qasaya kiiska Cabdalla Muumin xarigiiska dib marka maanta maxaa ku cusub xariga Cabdalla Muumin in Cabdalla xuriyad la siiyo laba shuruud lagu xiray Cabdalla in xuriyad la siiyo laba shuruud lagu xiray labada shuruudna waxay tahay ko in Cabdalla la sii deyn doono waa goorma waa hadii uu si cad u sheego إن دولة حد جذب يدا كتن كسحفيين تأجيسنيسو وسنكهلين ورديار موتين أنا الإدلة عد هذا ليس أنا ماله مسعوني يا شو ما دهيسين يا كو عبد الله يورد ورباهين في شرف إكرامه كله شغل الله وين واد دين شروطها صباح سو ملاقيه والعدالة شروط الوضع واحد تاي إن ورد ورباهين عبد الله مؤمن الشيء جرات قبطان ورالجلين أي بحيان محار رالجلين بحنا وح صحي شيئين ما أنت هذا أملين إنسان ورد بهين تينا إيه وح إسكوا لاقنا هيان ما أهن وح مستقبل كسامين دونه جيل كعصب النجا يسوع فيه تسوكره محاربنا أمر وحن كديجينا وان أكنا هاي نجارها يقترت كأن كعبد الله مؤمن أو إملاجيان سد حدا سقف مدحوين حصل الشيخ
madaxweyne shalay markaad mucaarad ka ahayd waxaad lahayd suxufiyiintu waxay heli doonaan deegaan xur ah ay ku shaqeeyaan deegaankii aan kaaga fadhinaa waxaan kaa codsanaynaa raggaas beegsanaya suxufiyiintana in aad tallaabo ka qaado jirtaay waxoogii baad barobagaandhaynaysaa waxoodii baad u akhrinaysaa maantay qabsadeen heblay dileen xaggay ka tuureen way jabiyeen way soo socdaan waxaasaa la akhrinayaa haddana waxaa la rabaa in la yidhaahdo saxaafadaan kusoo dalgabanaya oo saxafi baan ahay oo waxaan ahay xorriyaddaan ka shaqeeyaay oo kan baan ka shaqeeyaay waxaas waxba kama jiraan waxaas maraykankaa ku sameeya waa kaas meelaha adduunka ugu xorriyadda badan bal waxaasa laga sameeyo cid ogol ma jirto dawlad ogolna ma jirto sidaa darteed dawladdu tallaabay ka qaaday wayna ka qaadi doontaa ciddii isku dayda waxaas